رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود في كل سماء، والحق يسود في كل سماء، والحق يسود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى ومهد له السوق كان مساجد كان مرلبات محاضرة دي وحن سوقينا الطلاق وأحكامه وينوسو تشيديو شيخ محمد شبلي وحنين حسوسنا إنه وكلا بعد المغرب عاوة إن شاء الله تعالى إن مساجد كان كدع دون محاضرة دي آداب وطلب العلم وينوسو تشيديو شيخ محمد إدريس محاضرة ما أنت وحوية الطلاق وأحكامه. فليتفضل شيخ محمد وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي جميعا، موضوعا ربنا كهد لما أنت ما يولاله الدلبين وحكيرا هذا وموضوع باهدي سنة تاغان تهيدين عمارك لغا إيغو أن لغونا فرحين إنك هذا الكيسية سو قاديتان كيسة ماركي دين عاكرا لغا إيغو قويس كدسيتان كيسو يراركي أساس كيسو ومناسبات شرعنا قيمة وين كله عرفك يا دقن كنا ماموس يا فرحة يا كلن له مناسبات قويس كشريتان كيسو ووح مال بدن لغو بحيو وقت بدن الله هرو قويس كبربر كيسة يا كلا تجي سنة وارين قفك شخص قبستنا كعلوس qoyska ay ku dhacdayna intii qaraabadii iyo xigtada dhib iyo xagasho badan inay keento laga yaabo. qoyska marka la dhisayay inta badan way ajir badan tahay, laakiin qoysku markuu burburayo kala tagayo in badan baa ku dambaabta oo dambi badan baa ka dhasha. marka dhinac markaan eego waxaan isleeyahay in noloshii bay ka mid noqotay duruuftii nolosha iyo dhaqankuna waxay keentay ama ha la diido ama ha la doono ama ha laga naxo ama ha lagu farxo inay xaaladaha burburka qoysku badan yihiin. shariicaduna axkaam badan u samaysay, su-aasheeduna maalin iyo saacad walbaba ay joogto tahay, taasoo tilmaamaysa badnideeda iyo baahida in axkaamteeda sharcigu wuxuu u qaabeeyey la ogaado baahida loo qabo. dhinac marka laga eegana dee reer burburaya oo kala tegaya, carruur aabbiyo hooyo wada dhaqi jireen oo mid keliya gacantiisa ku soo dhacaysa, in xaaladdaa laga hadlo oo jidadkii loo mari lahaa iyo qaababka ugu fudud ee reerkii u kala bixi lahaayeen iyo xuquuqda ka dhalanaysa in laga hadlana naftu ma jecla. dhaguhuna inay maqlaan ma jecla, laakiin noloshii baa waxay dhab ka dhigaysaa in lagu qasban yahay in la dhaho lagu hadlo iyo inay dadku dhagaystaan oy maqlaan. calaa kulli xaal, موضوع عموما كهذا يا موضوع عاصو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيابك لدوم بوجدي
mar waxa uu leeyahay xadiid nabigaana ka suganaya imaamu muslim fii saxiixihi kaga warinaya min xadiidi jaabir waxa uu leeyahay ibliis biyaha iyo badda dushooda buu meeshii xaruntii maamulka iyo madaxtooyadii iyo carshigii iyo kuraastiisii halkaasuu ka samaystay goorta subaxa waagii baryo iyo habeenkiiba ciidamadiisa bini aadamka uu ku sallidayo koox koox buu isaga soo dabadiraa mid waliba ribood iyo warbixin buu soo celiyaa waxa uu soo qabtay iyo dhibka uu soo geystay bini aadamkii waxbaan u taray loomana soo dirin lamana noqonayo laakiin waxbaan yeelay meel baan ka tuuray dhib baan qoorta u geliyey waxbaan ka xumeeyey intaa weeye waxa loo soo diray warbixinteedii iyo shaqadii la qabtayna dib loola noqonayo hadba sida loo kala shaqo fiican yahay baa agtiisa loo kala sarraynayaa iyo boqortooyadiisa loo kala dallacayaa hadba mid baa imanayo maxaad soo qabatay saasaan soo yeelay inta badan wuxuu leeyahay waxa maadan soo qaban xagga naga fariiso naga fariiso marka uu yimaado ninka yiri reer baan soo dumiyey mid baa wuxuu oranayaa laba isqabtaan dhex galay waan u kala dabqaaday warkaan isu dhaadhaafiyey cagtaan cagta u saaray midig iyo biix baan kaga imid madaxaan isugu dhuftay say qoorta isugula jireen maantaan soo kala dhaqaajiyey oon waraaqda u kala qaaday ninkaasuu leey war soo daaya u bandheeya jidka ninkan aanan raga ninkan raggaa waaka ninkanaa shaqo fiican oo la garan kara qabtay ninkaasoo kale inaad noqotaan baa laydinka rabaa soo soco u bandheeya waddada meesha agtiisa uu ku fariisanayaa intii kale soo markaa inay tartamaan ma aha laleeyahay wixii aad ku mashquulsanayd wax ma aha inay ninkaa shaqaduu qabtay adna qoys soo kala faki wey marka waxaa loo soo dhaqaaqayo ee shaqooyinka ugu waaweyn ee la isku abaalmarinayo dee reer baan kala diray wey marka masaladu khatartaasay leedahay nabigu alay slam mar kale wuxuu ka digay aada mooddaa xadiidku gaar inuu ula hadlayo gabdhaheenna soomaaliyeed baad mooddaa xadiidkan soo socdaa inuu gaar ula hadlayo shucuubta caalamka meelo badan baan maray dad badanna waa la noolaaday dhaqan inoo gaaraa jira gabadha soomaaliyeed in la jecel yahay iyo in kale ifur bay ku ogaataa ninkay faraqa iska lalmisaa ifur bay dhahdaa hadduu yidhahdaa markhaati u yeerana waxay tidhaahdaa markii horeba inaanan meel la surnayn waan ogaa macnaha waxay tijaabinaysa ilaa hal meesha makaanada ay leedahay macnaa saas darteed ifurtii waxay noqotay wax lagu shaqshaqo wax lagu ogaada hadba basanteejku inta uu marayo niyadda iyo jacaylka iyo qalbiga loo hayo iyo sida loo rabo laakiin shucuubta kale ifur waxay timaadaa markay xaajadu caalwaan noqoto laguma degdego shucuub yar baan arkay qaybaha qaarkood la wadaaga sida shucuubta maqrib alcarabi oo kaleeto ama waqooyiga afrika ee waddamadan jazaa'ir iyo morocco iyo waddamadaas baa nooc kulleeti isku dhagii ku badan yahay markaan saa leeyahay waqti badan 9 sano ku dhowaad baan la noolaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrintaasuu ka digayey wuxuu yidhi gabar kasta uma bannaana gabadhu ninkeeda inay furitaan weydiisato iyadoon balaayo lagu kala taga jirin iyadoon dhib iyo balaayo lagu wada noolaan waayo aynan jirin inay ku dhegtoy tiraahdo fur iyo dalqadii halkaa ii dhig uma bannaana riwaayadka qaarkoodna wuxuu ku yidhi haddii ay saa samayso jannada carafteeda urin mayso haddii dhib jira iyo duruuf jirta waa la ogol yahay laakiin inteena badan duruuf inayna jirin waxaad ku garan saacadda waa la isfuri kadibna qiil baa la wada raadin oo bale lagu kala tagoon lagu noolaan karin hadday jirta maxaa hadda la isu daba socdaa wadaada u qiil noo fiiri waa la isfuri waa la isku noqon waan ku furay waa la isku noqon waan ku furay saddexdii markay dhammaato baa wadaadka la wareerin waxuu noo dayday meelahan ay ahayd baa lagu yidhi sheekh umar nin ku yidhi naagti baan furay 3 ku furay haddaadan qiilii helinna suufiyadaan u geli xaggaasaan u carari buu jiri meesha South Africa ee Johannesburg ee meelaheed garan maayo marka horeba 3 markuu ku furayey fiirsi la'aan baa jirtay waxaynu nahay mujtamacaadka ku degdega furitaanka ninkana waa ku degdegaayoo qayladeedan isaga aamusinayay buu ku leeyahay taygu qayladeeda baan iskaga aamusiyey de sheekh aniga daacadiga ma hayna waan iskaga reebayay haweentiina iyadoon dhib weyn ba jirin bay faraqa iska lalmin
waxay leedahay fur warqadayda halka ay dhig wax weyn ma jiro saadata nabigu arinta uu tilmaamay min ghayri ma ba'sin way hadaan baliya dhib weyn jirin oo dhaqankii iyo noloshii ana suuragal ahayn si fudud dalaaq in la isu weydiistay wax janna carafteeda lagu waayo xaraana way marka ninkun inuu ku degdega ma aha haweentuna inay ku degdegta ma aha marka nabiga alayhi salaatu wasalaam si kale uu dadka ula hadlay dadka qaar kamid uu la hadlay oo rag iyo dumar bale dadka qoyska isku dira in jinka shaydaanka jinka amalku qaban lahaana iyagoo shayaatiinul insiya qabta mar qoys bay noqotaa mar qaraabay noqotaa mar saaxiibay noqotaa mar rag bay noqdaan marna dumar bay noqdaan qofka laba isqaba isku dira waxan u kala qaada weeraweeriyo colaad u kala geeya ka dhax shaqeeya namiimiyada ah iyadoo guud ahaan namiim janna ma gala nabiga alayhi salaam oo ilaa yadkhulul jannata qatatun riwaayana namamun qof dad isku dirdiray janna ma galo haddana qoyska si gaar ah looga hadlay oo nabiga alayhi salaam xadiis wuxuu ku leeyahay imaam axmed iyo xaakim iyo burayt ibn xusayb ay ka warinayaan ninkii naga mid ma aha sharciga iyaga iyo jidka iyagiina ma haysto qofkii laba isqabta isku dira ninkii nin iyo xaaskii isku diray war u kala qaada inna ninkan isdhaafil yiraahda iyo naagtii tiraada nahogta ninkan iska fur labada midna lama ogola laakiin hadda waqtigan guruubiyaa jira dad waxaa jira inta wadanka joognayna waa aragnayo su'aalahan ka aragnay waxaan la weydiinayay su'aalo dhowr ah ugu soo noqnoqday sheekh dad kooxa oo rag iyo haweenka isku diro guryaha dumiya maxaad dhihi lahaydeen halka waxaan ka garanay xirfadii si fiican bay uga shaqaynaysaa meeshan wax badanna way ka faa'iideysano fudaydkeena codsashada dalaaq iyo furitaanka iyo fudaydkeena bixinta dalqad iyo ku dhawaaqeedana waa laga faa'iideystaa marka qolyaha isku diraya nabiga xasan wuxuu ka tilmaamay dariiqii nabi maxamed iyo jidkiisa iyo wixii islaam lagu aqoon jiray iyo qof ilaahay ka cabsanaya dhaqankii iyo ficilkii ma aha reer in la isku diro la dumiyo inaas waxay tilmaamayaan arrintani arrin fudud oo lagu degdega ma aha waa waxa la yiraahdo aakhiru dawaa'il kay markii xal kalan la waayo baa dab wax lagu dhajiyaa nolol adkaatay lana noolaan waayeen la wadi waayay qofkii labadii qofna isku rafaadeen asaasiyaadkeediina weyday baa lagu kala fududeeyaa sadarteed mawduucani mawduuc mar loo baahan yahay weeye taasi khulayska khatarta hal ahaado laakiin haddana faa'iido badan buu leeyahay kala tagga qoyska labada qoys ee qoyska wada jooga wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah qoyska shariicadeena waxay ugu tala gashay aasaaskiisa dad is raba oo isu haya naxariis iyo jacayl isu haya waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma haddii la yiraahdo qolay qorqabad biyo kuma cabto laba qof oo bini aadam ahoon israbin oo adkaatay inay wada noolaadaan qasab kuma wada joogi karaan noloshuna way kharaaraanaysaa iyaguna way isku dambaabayaan ama laba qof oo israbitaankii waxa ka jiro laakiin wixii la isu guursaday baa la kala waayay ninka reerka mas'uuliyad iyo xil baa lagu lahaa xilkii mas'uuliyadii buu ka soo bixi waayay maba u maqnaa waa ninka nolosha ka dhacay ee gidaarada fadhiya reerkii nolol buu u baahan yahay umaba maqnaba xaasna uma maqna ilmana uma maqna waa mid nolosha ka dhacay ama duruuf baaba la soo daristayoo soo waxaa iska dhici karee dee xabsi dheer buu galay xabsi daa'im baa lagu xukumay ama wixii xiriir gogoleed la isaga baahnaa baaba laga howlgabay dhinacay dooniba labada reerka isqaba ha ka timaadee asaasiyaadkii qoyska la isu guursaday in ilmana la dhalo noloshana mid walba kaalintiisa qaybta qaato
naftana shahawaadkeeda xaraan intay geli lahayd xalaal lagu badbaadiyo si wanaagsan iyo isweheshi iyo isdugsina loo wada dhaqmo ba ama la wada waayay ama qayb la waayay gurigii noloshii naxariistii iyo deganaanshaha ahaa god cadaab uu isu bedelay laba col ah meesha wada degtay waxaynan aamin ka ahayn marka dambe ilay haddii la isku sii xajiyo isdilaan way adduunkaba isdhaafiyaan marka laga xaal waayo xal kale laga waayo noloshiina ay adkaato wixii la isu guursaday ee reer loo ahaana socon waayo in risiqa ilaahi waa waasic qof walbana meel baa ilaahi calafkiisa ka arsaaqaaye in loo kala fududeeyaay waa tii ilaahi yidhi wain yatafaraqaa yugni illaahu kullan min sacati hadday kala tagaan mid walba ilaahi risiqiisiiya deeqtuusuusin oo shalayba so iyagoo waaweyn isuma iman miyagaa ur wada jiifoo mataana aha mise iyagaa wadnaha iyo kelyihii iyo indhihu isugu yiileeno hal qof oo isku samaysan aha mise noloshan qaybteedii hore iyo qaabka loo noolaada barashadooda bay iyagu isa soo bareen intaa midna ma jirin iyagoo waaweyn oo mid walba nolosha qaab kala qabsaday baa waxaan loo kala maarmaynin oo hadday kala tagaan hadda midna uusan keligii taagnaan doonin ninkiina meel qoorta la geli haweentiina meel kale qoorta la geli oo wax dayday ha kala tagaan laakiin waxay u kala tagayaan inay wax kala daydaydaan marka iyagoo dad waaweyn ay isu yimaadeen haddii wixii la isugu yimid socon waayo oo sinaba looga xaal waayo in meel kale la kala raadsado oo si kale loo kala calaf doontahay wain yatafaraqaa yugni illaahu kullan min sacatihi iyadana intay isku akhriya adduun seegi lahaayeen in adduunkoodiina la kala badbaadiyo aakhiradoodiina la kala badbaadiyaay waa waxay danta iyo duruuftu keenaysee xataa kuwii aan islaam ahayn ama si loo kala taga aan aqoonin ay noloshii u wadaagi waayeen wey saas darteed baa maanta waxoogay waxaan tilmaamayaa kala tagga qoyska masaladu haddaba talaaq baad u wada taqaanaane talaaq way ka weyn tahay qoys jiray oo kala tegay xiriir iyo xarig guuroo jiray oo kala furtay mid walibana xariggiisa uu qoorta saartay baan ka hadlayaa maanta saas darteed ba waxaan leenahay qoyska kala tegiisu ama xiriirkii iyo xariggii nikaaxa iyo meherka go-itaankiisu marka hore waa laba qaybood labada qaybood in nolol kala geyso iyagoo nool la kala tago iyo mawd iyo geeri inay kala geyso wey labadaa mid wey mid walbana axkaam iyo wax ka dhashay leedahay midda soo gaaban cidnana aan lagu eedin qofnana aan dembi loogu tiirin waa hadday geeri kala geyso haddii ninkii dhinto haweentii waa madax bannaanta hadda xaaladeedu guur iyo guri kala raadin baa u bannaan oo u furan haddii haweentii dhimatana ninka xaggeedii iyo wixii ka saarnaana waa u madax bannaan yahay waxyaabihii iyada joogitaankeeda kaga xirnaana waa u xoroobaya waa u fasaxan yahay laakiin kay geeri ku timid gardarro ma laha geeriduna is-eedayn ma laha halka nolosha lagu kala tagaay eed iyo utun ay reebto geeri marka lagu kala taga marka maxaa ka dhalanaya midba waan isku soo duuduubiye axkaam ilaa 5 ah baa ka dhalanaysa 5 axkaamta ee ka dhalanaysa amaan 6 ka dhigo 6 arrimood baa ka dhalanaysa haddii labadoodii midi geeriyoodo inta badanna waxay ka dhalataa ninka geeridiisa inna way wadaagaan inna haweenta geerideeday ka dhalataa kow waxaa ka dhalanaya waxa la yidhaahdaa alcidda haweentii ninka marka uu geeriyoodo ciddad bay gelaysaa ciddadeeduna laba mid weeye hadday uur leedahayna wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay ilmaha dhasho ama si caadi ha u dhasho ama waqtigiisii ha ka soo hormaro ilmuhu ama ha noolaado
ama meyd ha ahaada markuu dhalanayo ama muddaha u dhaxaysa geerida iyo dhalmada ama yaanay muddaba u dhaxayne ilaahu saacadiyo daqiiqada may u dhaxeeyaan keliya hal shardi unbaa ama laba shardi aan idhaahdo dhalmadu inay iyo geeridu inay dhalmadu dambayso intay dooniba ha dambaysee waxa dhashay inuu suuro iyo sawir aadamo ka muuqan karaan ilmaha oo ilaa 120 beriya uu gaaray inaha qiyaasa inuu gaaray way gabadhu hadday ilmo dhasho marka ay dhashayba cidda waa ka dhamaatay inay guur iyo shukaansina u furana u madax bannaan iyada umula waa la mehersan karaa ciddadeedii waa dhammaatay ixdaadkii iyo asayna waa dhammaatay waa haddii ay uur lahayd wey haddaynan uur lahaynna والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أفر بلود يتوبن هبين بيسوغي oo laga bilaabay waqtigii nafta ay ka baxday ee uu geeriyooday ninkeedu ama ha ogaato ama yaanay ogaanin marka uu geeriyooday nafi ka baxdo bay ciddadeedu bilaabataa bilaabashadeedu iyada ogaanshaheeda iyo xog iyo khabar inay haysa kuma xirna hadduu ninku meel fog ku dhinto oo waqti kadib maqasho muddadii inta ka laaban bay ciddo geli haddayba muddadii dhammaatayna ciddo waa dhammaatay markii uu dhintay ee la xaqiijiyo haddii la xaqiijin waayo goor uu dhintayna xilliga ay maqashay unbaa la hubaa xilligaan bay ka bilaabi waayo lama oga waqti uu dhintay 4 أشهر و10 4 bilood iyo 10 habeen 4 bilood iyo 10 habeen waxaa isku mid ah haweentii reer iyo xaas noqotay ay ninka isreeraysteen iyo midii meherun ku dhacay oon waxba weligood la is arag jirkooduna istaaban sare geeri markay timaado 4 bilood iyo 10 habeen waa u siman yihiin nabigaana sidaa xukumay sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa la kala qaadayo waa haddii nolosha lagu kala tago way xadiidka nabigu ku sheegayna axkaamta dhowrka ee soo socota soo gudagelaysa markaan dhameeyo baan tilmaami doonaa insha Allah taala sadarta waxa la xukunka koobaad cidda ka dhalan hadday uur leedahayna waa inay dhasho oo laba shardi leh dhalmadu inay kad iyo geeridu horeysa dhalmaduna dambayso muddo kastaba ha u dhaxaysee ilmahan inuu sawir aadama ka muuqdo labadaa waa shardiga uurka haddii kale waa afayna uur lahayn waa 4 bilood iyo 10 beri caada wax ka soo qaad ma leh caada lama tiriyo geeri hadday timaado in reer la isu noqday oo gogol iyo guri la isku arkayna shardi maaha marba haddii uu xiriir meher iyo xarig hayay jiray xukunkii ciddadu laazim weeye masalada labaad ee ciddada ku lamaan waqtigeedana ku hoos jirta waa masalada asayda ee carabiga al-ihdaadu lagu yiraahdo gabadha ninkeedu geeriyooday muddada ciddada ay ku jirta ilaa ay ciddadu ka dhamaato ama dhalmaha kaga dhamaato ama 4 bilood iyo 10 beri ha kaga dhamaatee inay ihdaad ama asay qaadaa laga rabaa asay maxaa looga jeedaa sharcan asayda sharcan waxaa looga jeedaa gabadha muddada ciddada ay ku jirto waxa laalay wax kasto qurux iyo xaraga ah ama cadar iyo barfuuna looma ogola waxa laalay maadada baafumiska la yiraahdo ama iyadoo kaligeeda ama iyadoo wax kale ku jirta lama ogola saabun bafum ee percentage ku jira barfuun lama ogola saliidu bafum isku jira lama ogola shaamba iyo bafum isku jiraan lama ogola dhar barfuun lagu buufiyay lama ogola isagiyo kaligii socdana iska badaa wax barfuun la yiraahdo dhan looma ogola waxa kale oo isna mamnuuca waxyaabaha ziinada iyo xaragada ah indha kuul baa kamida lama ogola dharka la xirtaa kamida ziinadu saadarteed waxaan leenahay quruxdu 3 bay gashaa 3 midna lama ogola
jirka wixii lagu qurxinayo oo cilaan iyo xarxarad ah ama timaha la qurxinaya lama ogola cidiyaa la qurxin cilaan baa la ismarin indha kuul baa la marsan waxaas oo dhan lama ogola jirka lagu qurxiyo dharka waxa lagu dharka qurux dharna lama ogola oo dharka quruxdo dhan lama ogola dharka quruxdu hadaba xad gaara ma laha xilliga ay joogto iyo goobta ay joogto wixii xaraga iyo qurux loo xirto lama ogola midabku dooni ha lahaado magacuu dooni ha wato qaabku dooni ha u talaado wixii xilliga lagu xaragoodo lama ogola maryaha jirka lagu xiranayo nooca xaragada ama dhalaalka ama quruxda ama munaasabaadka loo qaato lama ogola culimada fuqahada baneeyay gabadha iyadoo ciidada ku jirta ciidada geerida arooska qaraabada way tagi kartaa yiri waxay yiraahdeen laakiin u labisan maysa sida dumarka kale dharkii caadiga ah isaga joogtay haddii hawl loo baahdo laga maarmi waayo ha tagto habeenkiina ha soo noqoto laakiin yaanay labisan ziinada nooca saddexaadi waa ziinadan dahabyada iyo faraatiyada iyo wixii la xiriiro dhan wax dahab la yiraahdo lama ogola la faraati wala silis wala jijimo wala mid lagu xidho wala mid dheg la geliyo wala kan hadda inuu soo biirayee soo badbadanayee kusanka lagu durayo iska kala qaadin wax dahab ana lama ogola isku soo ururiyo dhammaan xaragoo dhan iyo quruxoo dhan iyo wixii cadarihiya waa ka xaraam waxaan qurux ahayn ee nadaafada way isticmaali kartaa ama kareem ah ama saliid ah intaasoo dhan bisharti baafuumis inayna ku jirin wey ama maadadeedu maaddo carfaysa waa inaynan ahayn wax carfaya lama ogola taasi waa xukunka koobaad ee geeridii ka dhalanaya kala tagii qoyskii xarigu go'ay masalada labaad ee hadday masala dhacdo gabadhii cidday ku jirtaa waa inay iska xaragoonaysaa waxay tiri anigu ciddadii waan ku jiri asaydii waan qaadi waan ku jiraa ciddadii waan tirsan laakiin dahabkayga dhigi maayo waa dhici kartaa dahabkeedii bay iska qabtaa way iska xaragoonaysaa arooskay ka boodaysaa iyo tumaysaa iyadoo dharkii ugu dambeeyay qabta xukunkeedu muxuu noqon ciddadu way socon waqtigeedu iyadana way dambaabi kasaday uga tagtay haddaynan ogeyn xaraamba inay tahay ama geeridaba aynan maqal ilaa ciddadoo dhammaatay ma ahane dembi ma laha ciddadu sideedaba asay lama qaadin uma istaagto lama ogana uma istaagto ciddadu way socon waqti weeye go-aan bilowday waqtina ku dhammaanaya wixii kale waa qof dembigi sameeyey oo macsiyo la yimid oo tawba laga doonayo wey laakiin asaydu tan Soomaalida maaha islaanta la karantiilayo ee madaxa timaha la goynayo ee marada cad loo xirayo ee masarka cad loo duubayo ee dariiqa qofkii meel ka arkaba mawdka iyo geerida socda dambi way xaraan way ma banaana qofku waa karantiilan yahayba banaanka markaad aragto mawdkii oo socdaad aragtaa ciida la isku shubay waxyaabahan iyadu ahkaamul janaaziya mawdkii iyo niyaaxadii waa baab kale oo baabkayga ma aha baabkii niyaaxaday ka qayb geliya baroor diiqdii sharcigu xaaraantinimeeyay karantiilkaasi waa dhaqan diin ma aha dhaqana ahaadee diinta ma waafaqsana nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisii xadiisu musalama warinaysa loo yimid waxa rasuulka ilaahayow gabadha hebla la yiraahdo ninkeedii waa dhintay wada dhimasho caadi ah ma ahayn raggii uxud ku shahiiday buu kamid ahaa waxoogay way yar basaasantay indha kuul ma u marina waxoogay burugadii iyo oohintii baa indhihiisi si ka noqdeen oo diif baa ka muuqatee indha kuul ma u marina markaasuu yidhi maya lama marin karo xaggaa laga soo wareegay su-aashii baa lagu soo celiyey waxaa la yidhi way rafaadsan tahaye maan isaga marino markaasuu wuxuu yidhi maya xaggaa laga soo wareegaye waxoogay qiilun ma loo heli karaa hadal macnihiisu yahay baa su-aashii lagu soo celiyey intuu xanaaqay buu wuxuu yidhi dhegaysta
jaahiliyadii waxaad ahaan jirteen sanad baad meel buul cidlo oo karantiina ku xidhnaan jirteen 4 bilood iyo 10 habeen oo dadkiina dhex joogtaan guryihiina shaqaysanaysaan baa la idinku bedelay ma adkaysan liidine ka daayay gabadhina ku loo marin kare marka qeyl bixis iyo luuq wareeg waa la diiday masalada saddexaad ee ka dhalanaysa dhaxal way ninkii haweentii ka dhintaba ka kala dhaxlaya ninkii hadduu yahayna ama nus buu dhaxli haddaan caruur jirin xoolana ay ka tagtay ama rubuc buu dhaxli hadday caruur leedahay xoolaba ha ka tagtee haweentiina ama rubuc bay dhaxli hadduu ninku uusan caruur lahayn ama iyadoo ha u dhasho ama qof kale ha u dhashee haddii kalena thumun bay dhaxli haddii caruur uu dhalay wuxuu dhalay inuu ka tegay taasi ama ha noqoto reer guri wada galay ama reer aan guri wada gelin ha ahaadaan iyadana dhaxal baa ka dhalano xoolihii baa dee la isku yeelan xukunka afraad ee ka dhalanaya xaqii xilo iyo reernimadu wuu go'ay hadday nafi baxdo wax lama kala raadsan karo ninka xaaskiisii geeriyootay iyadoo meyd ah wax kama dayan karo naagtuna ninkeedii oo meyd ah wax kama raadsan karto waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan wadaadku ma waashay ma meyd baa wax laga dayay inaad tirahdaan baa laga yaabaa laakiin way dhacday daday ku dhacdayna oo Soomaali ahna waan arkay saatad markaasaan garawsaday fuqahadeenu markay dhihi jireen ma la xadayaa oo xad ma ku laazimi qofkii meyd wax ka dayda xad ma laga rabaa markay baabu xaddi zina kaga hadlayaan waaga hore waan la yaabi jiray waxaan lahaa ma tabci saqaf bini aadam oo tabci saliima baa meyd wax ka dayan ilaa arkay laba qabiil oo Soomaali ah oo dhanna xaajadeedii ka taalo dhanna isugu faanaya in xaaladaasi markay dhacday reer baa ku faanaya ay xaal astureeno ninkii durbo xaal astureen qolo kalena waa arko labaado xaajiya gar la isugu haysto labadii reer ma meydka la aasa mise garta la galay taaganta marka wax kastoo culimadu ka sheekayaanba waxaan iska rumaystay waa kula kulmin un adige way jirtaa ama intay haddaad maqli weydana intay ka ag dhacday baa asturtay oo dabooshay sidii loo baahnaa calaa kulli xaal hadday geeri timaado xiriirkii gogoleedii wuu dhammaaday hal mas'alaad laakiin ka garaabaysaan dad geeriyooday nin dhintay oo caruur dhalaya ma maqasheen hadda waddamadan aad timaadeen waxaydaan aqoon jirin baad barateen qofkii ragga ahaa oo shahwadiisa inta la qaado la kaydiyaad barateen haddii ninkii intuu noolaa shahwadii laga ururiyo la kaydiyo markuu geeriyooday kadib islaanta intay isticmaashay ilmo ma ku dhali kartaa maya xiriir gogoleed waa dhammaaday wixii markaa kadib biyihii intii lagu beera ay ku dhashana wala duziniya wacal wey sababta mar hadduu geeriyooday xariggii waa dhammaaday halkaasaad ka garanaysaan culimmada markaad weydiisaan su-aasha waxoogay dhakhtar baan u baahday iyo ilmee inta shahwadeyda la qaado xaaskayga ma lagu shubi karaa baa waxay idin dhahayaan haddii markii lagaa qaadayay iyo marka lagu shubayo xariggii reernimadu jiro waa lagu shubi karaa nin dhintay iyo reer kale tegay iyo biyahood baa laga cararayaa warka waa lagu soo koobay oo su-aal baa lagaga jawaabiye baabka lama faahfaahinayo saas darteed nin dhintay biyihii lama isticmaali karo islaan dhimatay biyaheedna lama isticmaali kariyo xunteedii mar haddii xariggii dhammaado mar haddii geeri timid xariggii waa go'ay xiriirkii qoys xaalad baa ka soo hadhaysa waqti koobana oo maxramnimadii labada isqaba u dhaxaysay waa masalada dhaqitaanka iyo aaska way labadii isqabay way isdhaqi karaan xariggii waa go'ay laakiin raad buu leeyahay masaladaana waxay idin fahansiiye baabka fiqiga waxaa jira geeri markay timaado qofku waa geeriyooday xaddii takliiftana waa ka baxay
xarigiina waa go'ay xaddii hanti iyo milki inuu yeeshana waa dhammaaday laakiin wixii duruufay ay keenayso waxbaa xarigiisii laga baaqi yeelaa markaad dhimato xoolahaagii dad baa yeeshay laakiin weli milkigaagii waxaa xaq ka hari aaskaagii iyo deyntaadii xoolahan waa in laga bixiyaa waajib weeye maxaa yeelay ninkii dhibayoo dad kalaaba leh see waajib ku noqotay weli shubhatulmilki baa xaqiisii baaqi laga yeeli limaslaxatihi tanna waa masaladaasoo kaleeto xariggii ficlan waa go'ay laakiin shubhatulcaqdi iyo xiriirkii maxramnimadii baa saacadahan ka laaban baa dhaqitaanka iyo aasitaanka waxoogay baaqi looga yeelay nabigaana sidaa tilmaamay sala allahu alayh ali wasalam masaladaasaa intaa yar ka soo haraysa masalada kale ka dhalanaysa waxaa weeye ninkii hadday xaasku dhimatay wax ka xaaraan ahaa baa u xalaal noqon walaasheed waa u xalaal xataa yaan la aasin haddii la rabo intay noolaydna looma ogolayn walidaalika ad baabka xiskiisanka taqaanaan qoftii inuu la guursaday iyada ay xaraam ka ahayd oo dhan walaasheed eeddadeed iyo habaryarteed mar hadday geeriyootay waa u xalaal xataa haddii aan la aasin waxaa kale uu xalaala hadduu iyada afar ku ahayd oo mid damba aan loo ogolayn markay geeri ku timaaddo boos baa u soo bannaanaadayoo booskii labaad waa buuxin karaa waxa afraad waa buuxin karaayo axkaamta ka dhalatay bay ka mid tahay axkaamtaasna geerida kala tagga xarigga go'ay xataa iyadoon la aasin bay axkaamta kaloo dhan bilaaban qofkii oon la aasin bay bilaaban halkaa yar baa xariggaa la dayn dhaqitaanka iyo duugta ah maadaama qofkan cawradiisii la arkayo marka la dhaqaya inta badan labadanna cawro aynan kala lahayn inta u dambaysa isa sagootiga iyo kala taguna aanu midna eed ku lahayn oo ajal rabbi qadaroo timid ay tahay intaa yar baa kashfigii cawraadka qofkii hadda ka horuun arki jiray baa intaa shubhada ah loogu daynayaa intay dad kala arki lahayn saasaa fiican masalada intaa waxaan kaga bixi qoys ku kala tegay reernimadii laakiin ay geeri kala geysay oo ajali kala waday adduunkana aan kusii wada noolayn qaybta labaad waa dad nolosha isku waayay wey reer nolosha wada dhaqnaa oo nolosha wada joogay oo shalay reer ahaa maantana iyagoo taagtaagan oo nool oo reer iyo adduun dhaqaya la kala dhaqaajiyey furqatun fi lxayaati wey iyadana waxaan u qaybinaynaa laba qaybood inuu furitaan ninka ka yimid yahay iyo fasaq qaadi ka yimid inuu yahay labadaa mid wey masalada fasaqa qaadiga baan u horrayn inay iyagu kala tagaan iyo in la kala kaxeeyo wey isagu inuu furo iyo in laga furo oo si sharci waafaqsan looga furo waxaa dhici karta sababo jira dartood ninkii iyo haweentiisii iyo xaaskiisii inuu xarigoodii ku go'o tafriiq iyo fasaq la kala geeyey oo la xukumay inay kala tagaan asbaab badan baa keeni karta isagoo joogana way noqon kartaa nimaan jooginna way noqon kartaa sababka koowaad ee keenaya waxaa weeye nabiga alay slam guurka marka la isguursanaya wuxuu yidhi yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj ninkii reer dhaqi kara ha guursado sabab fainahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarji indhahaaga meelaha fiirfiirinaya shahwadaydayga ana way laabaan farjigaagana xaraam bay ka ilaaliyaan isku soo ururiyo shahwadaadii qofku uu lahaa inuu xalaal ku gutaa maqaasidii guurka ka mid a sababaha keeni kara waxaa ka mid a marka intii la waayo fuqahadeennu labay soo qaadaan tusaale ahaan inta badan laakiin rag iyo dumarba waa ka iman kartaa ninkiibaa wuxuu ka baxay xaddii xifdu shahwada ahayd buu gabay waxay yidhaahdeen licunnatin waxa ciniinnimada la yidhahdaa ku dhacday
cininimadu qofka xubnihiisa taranka wax ma qabaan laakiin waxba ma qaban karaan uu hawl gabay ama xanuun iyo cudur ha keeno ama da'i ha keento ama nin raga ahaan jiray gadaal ha kaga dhacdo ama markii u horreysay reerku guriga soo galayba ninkii waxba haysla waayo haddii laba mafcuul la noqdo si kale u dhaho meesha faacil iyo mafcuul baa lagu wada joogaye haddii laba mafcuul la noqdo laba qaawan isma qaado wey qabaa'ilka soomaalida qaar ka mid oo gabdhahooda ay wax baran jireen baa markay qabaa'ilka kale ragga usoo shukaansi doontaan bay su-aalahay weydiin jireen waxaa ka mid ah horta adigu ma faacil baa tahay mise mafcuul baa tahay markuu warwareegay dhihi adiga ii jawaab midkaa tahay isagiina faacil iyo mafcuul ma kala yaqaano waxaa laga yaabaa marka midun buu iska dhihi inuu mafcuul dhahaa dhici karta markaas waxay leedahay laba mafcuul wax isma qabtaane ina kala wadi hadduu isagii laba mafcuul la noqdo oo ninkiiba hawlgab uu noqdo gurigii la soo galayba waxba ma hayo gabadhii xaqul faskhi bay leedahay isagu inuu furo hadduu ogolaadana wanaag haddii kalena qaadiga warqad fasaqa ka siinaya oo ka furaya waa sababaha keenaya in la kala kaxeeya qayb ka mida haddayna waa idiin tilmaamo maqsadkii guurkaba haddii la waayo ee gabadhii maxay meesha ugu xanibnaan adiga imtixaanka kugu dhacay allah ku caafiyo laakiin ayada maxaa xanibay maqsadkii fa ina waqadu lilbasari waaxsanu lilfarji male haweenta xaggeeda hadday ka timaada waa cayb laakiin ninka talaaq buu leeyahay fuqahada shaaficiyaduna fasaqna waa mari karaa bay yidhahdeen waxaa ka mid ah baabka cuyuubta gogosha waxaa ka mid ah haddii labadii qof midkood alkhuntha almushkil uu noqdo labeeb hadduu midkood noqdo labada caawa marka la isu soo galbaday unba haweentii oo labeeb aad aragtay ama ninkii oo labeebay aragtoo labadii xubnood ee tarankaba leh saanuun akhriska fuqahada sheeke u akhrihi jiray baan sanadkii hadda inaga tegay dhexdiisa soomaali ay saa haysata garteeda galay soo laba dhihin cimrigaagoo dheeraaday geel dhalina waa ku tusaa maalmo dhan baan anigii dhannaa waswaasanaa reer intay isguursadeen aqalkii arooskii dhigteen habeenkii marka la isu galbaday midkood labeeb noqday baan xaajadooda galay meel Mombasa la yidhaahdo oo Kenya ka mida de waagii hore baabul khuntha markaan axkaamtiisa aqrinaya aad igama daadegi jirin maalinka intii ka dambaysaa dib ugu noqda waxaa war wixii khuntha iyo labeeb laga qoray oo dhan bal isha mari haddaad si fiican u fahmay baasha ku qabsatay midkood baan noqday kii kalena waa ku qanci waayay inuu la noolaado waa cuyuubul jinsi bay ka mid tahay calaa kulli xaal isku soo ururiyo cuyuubtii keenta in wixii loo guursaday ee shahwadii xalaal in lagu guto haddii la kala waayo oo midii howlgab rasmi ah noqdo xaq ama ninkii hadday ka timaada xaggiisa ama furitaan buu ogolaan ama qaadi baa sababkaa darteed tafriiqin oo kala furi gabadhuna xaq bay u leedahay qaadi intay u dacwooto inay fasaq dalbato hadday xaaladaasi qabsato laakiin halagow markaad sheegateed ku dacwooto ninku waxba ma hayo caddayn bay kaaga baahan caddayntay kaaga baahan tahayna ama dhakhtar baa la idiin diri hadda laakiin waagii hore dee wadaadadeennii iyo axkaanlaydeennii baadiyaha joogay siyaabo kalean u farsamayn jirnay oon ku kala xaqiijin jirnayo hadda idinka waxba ugama baahnidiin ka sheekaynteeda iyo sheegsheegeeda magaalaad joogtaan waxba uga baahnidiin dhakhtar iyo baaritaan baa loo diri dhakhtarku hadduu soo caddeeya sidaa inay jirto oo meesha aan waxba la isku haynin gabadha warqadeeda sii baa leeyahay ama waan kaa furaynaa adoo indhaha ushan yihiin fasaq baa loogu taagaya hadduu diido waa kow sababta labaad ee keeni karta waxaa ka mid a cudurrada aan lagu wada noolaan karin aan la isugu dulqaadan karin waxaana u badan laba qaybood baa lagu soo ururiyaa cudur gudbo oo tallaala cudurrada gudbo ee tallaala waagi hore culimmadeenna waxay ka hadlayaan qofkii TB cudurrada TB-gay ka hadlayaan
ومرض الصلي بيكليهن عذر كان تيبي أما قاحدها ترادان أما عذر هذا الجذام كأكلته الجذام أما وعذر هذا هذا عصب سيدا أيديس كأكلته يوحي لمتك هذه لبدي قف مد لجاه له نيك دو بيسكا فوري كراي كابو فسق بحقه يلان عذرنا خطرت الدلاجة في ذا يا أسباب تيدو يسكون نحشركم أسباب تيني جدبان أي كمتة أما عذرها جدبنا وحاجرة لكن هذا لن ولا كرين أتكيسن كرين كالجنون وواشي نيكي بيك مريوه دكتي قبل لكريوا أما عذر كان برس كعكون دعي يوحي اللمدة هذه وقفك كلا استقر للنقطة إنه كلن ولا ذنا إذا قصب ميسو لكن قبل هذا يسوي استعتوا التراضى أنا كان نلاشن بكرة كرو حق بيقول هذا عذر هذا طبعا لقى عرره النفط أنا أقبل كرين هذا إنك يكون عن قبل فسق بيحق هذا وجرجي مودة ورحمة ماشى مطال جرجي سكنا مال وحصلها هنا مطال مال وحين نقطة جد عذاب النقطة أسباب تفسق كأنتية تفريق كمته وحكم إذا أسبابتك كأنت ننكي بقى قالوا بي دينتو وكب حيبا ما ذهبت قالوا وقالوا تواجهوا روالي يابي تشرتين لكن إذا الصومالي قالوا ذي هذا وعرك تبانو مالينا يا مقالة تشيدت كنا قوى اللي يوشيغي أما الرجل أما دمر له هذا واحد دي قاضي ويجي قبضي مركه أباها تعدين إن مدح بنانته قاضية أما عدة مخول كان كهل الدونة شقضاء إسكاله ورقد عيسين يان إيادنا قيبتا فسق الراعيسة واختلاف الدين لبدي يموت بالله كلا قال الله كلا كحيا لبدا قف سببها وحاكمدا انتهن عرض إيا شرف ويماده تهن كيا خلاف كينا انتو عركة اسكو الشريرو وبابو اللي عانقلو نينكي هديو يراهدو هوانتني ويقول دافتي أما أريقا واد دافتا الله يوحي معنيه يساو قواد يكو شيغو هديه دي انتي اللي اسكو قيل لا اسقرصاده يغي اتال هديه حاجة يطول انتو صور نحقالا سيكال الله حليانا ويتال يغي اتال هديه لكن حاجة دي عركة انتي اسكو شريرتو لغا يابا المعرورون مدي ديدن يهي وميشا يال بابو اللعان اي قشو iyadana marka liicaan ku dhamaado waa la kala kaxaynaya abidkoodna inta adduunka nool yihiin isku soo noqon karaan haddii dad labadooda ka soo haraan dib isuma guursan karaan liicaankuna waa asbaabta fasaq iyo tafriiqa keenta way waxa kamid ah ninkii in la waayo ninkii baa la waayay waayitaankaas laba mid buu noqon karaa nin meeshu jira loogyahay وساوث أفريقيا وشوغا سلانتينا حقا يشوغتا دبنا وما تشيرين تضوى سيدة سنة طبعا كيساري ودن بيزي وراوي هل كاسو الدقان يا التلفون كيسانا والله هيا وركالي ريار كان نصو النقو ما سو سعودو ريار كحيسو ما كحيسان ايو إيادينا الرال اللي كن نقوم ويدي وحي تريد دانو المنا واو بانه لقنا واو بانه ننا واو بانه هل كاسي سو يستاكتي فرقة والله فسقيا تفريقة وسبب غيبة سيو دي حقوق الرنمة لقولها هذا لقواي وحد عكرت غيبة ذني إن لقيها يمشوا تشيرو أو حبس بوقلو وحبس الدام يا وحلا ميدا لو حكومة عكرته ودي حقوق الرنية وذا نقن لقواي وحد عكرتنا نمرو تشيرو باللوجين مالو كتب عيبا ننكي ورلو ما هيو صبح سوء دقاقي عريا دول ميرو كودن بين نورل iyo geeri lama hayo ninka meeru jira aan la ogeyn iyo ninka meeshu jira la og yahay waa kala laba ninka meeshu jira la og yahay hadii waqtigiisu dheeraado qofkii dumarka ahaydna inay raali noqoto sabirta ay diido waa laga fasaqaya ninka la waayay meeru jiro nolol iyo geeri toona aan wax lagu ogeyn 4 sano loo qabanaya أفرتا سنة ور يا وعال هدي لجوايو
waxaa la xukumayaa inuu dhintay xoolihiisina waa la dhaxli haweenkiisina ciddatul wafaad iyo geeri bay tirsan laakiin xukumkaas baabu tafriiq ka soo galaya xukum bay u baahan tahay masaladaas waxaa keeni kara in la kala geeyo labada qof ninkii in laga waayo reerka nafaqo iyo biil laga waayo ama waanu haysanba ama waanu rabin ama waa taagan yahay wuxuu reerka ku biila lagama hayo 3 maalmood biilkii reerka haddii laga waayo iyo 3doodii habeen oo ku soo bixi waaya hal marna wax la cuno hadda iyadoo raalli ku noqotay ku sabirtana waa sida wanaagsane waa alxamdulillaah iyadoo hadday soo istaagto ay arrintu noqoto odaga kabihiisu waa urayaan kabihiisa uraya hadday noqoto oo tiraada aniga kuma geli karo mana yeeli karo xaqul fasxi bay leedahay inay dalbato xaqul fasxi bay u yeelanaysaa inay dalbato haddii uusan haynin oo jooga way hadduu hayo diidana waa la mid muhiimadda nuxurku nafaqa iyo biilkii lagu lahaa laga waa ninkii hadday nafaqadeedii ka weydaayey inay raadsato cid nafaqadeedii iyo xilkeeda qaada in xor looga dhiga way waxaan ku soo gabagabayn qaybaha loo kala kaxayn karaay waxay yiraahdaan lishiqaaqi wa su'ul 'ishra labadii qof dhib kale ma jiro laakiin laba qof oo isdabeecad fahmi kartaba maaha qub iyo qaciya dagaal way isnaceen gartii waa la galay waxba waa ka hagaagi waayey waa la soo kala istaagay ama gabadhii baa soo istaagtoo maya bay soo istaagtay markaana xaqul fasxi bay yeelan warqadda fasaqeeda in la siiyo yeelan nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ahaa oo aniga adoo kale aan ahayn oo la dhihi jiray khatiibu rasuulillaahi sala allahu alay wasallam ninka nabiga uu khudbeeya carabtu aftahannima la isugu faani jiray carabuhuna intay yimaadaan ilaan sheekada nabiga suuqa loo geliyo waxaa ka mid ahayd waa nin aftahan oo balaaye ahee nabinimo ma jirto carabuhu marka intay nin aftahana soo kaxeeyaan baa lagu tartami jiray waan soo istaagi khudbo aanan soo diyaarin eray deelqaafihi iyo laaxinna aan lahayn baan wadi hal kelimadna aanan ku marganaynin baa la isugu faari jiray erayadaan isticmaalayana erayo yaryar aan ahayne erayo waaweyn oo luqadda ah oo horiskoodu isu dhigmo oo isku beegbeegaya baa la isugu faari jiray marka carabuhu intay u yimaadaan oo ku soo talagalaan nin baa hortiisa laga khudbeyn jiray thaabit ibn qays ibn shammas buu nabigu dhihi jiray thaabit oo istaag isagoon soo diyaarinin wixii uu ninkaa ka hadlay buu sidiisii si ka daran uga hadlaa marka nabigu ninka booska difaaca u taagan waa ahaa kowdhe mar labaad nin nabigu isagoo nool janno ugu bishaareeyey buu ahaa jannadii uu geli ninkii yidhi waa nabigu salaam ninkii sidaa ahaa 2 jeer ama 3 jeer baa waxaa qabsatay dhacdo ah inay islaantiisii soo booduun ninba waxbaa lagu imtixaanaa moogta adigoo nin raga unbaa xagga reeraha inta lagaa galon baa laga yaabaa in lagu imtixaano 2 waan hubaa mid saddexaadna waa ka shakisana baa mid walba inta nabigu u tiyay rasuulka ilaahayow ninkan caawiye habiri midna ma arki kara habeen iyo maalin midna ma doonayo ninkan ma rabo waxay indhahaygu qabtaan isagaan ugu necba inaan ilaahay dambi aad ka galaan ka yaabi qamid baa waxay ku dartay diintiisana ceeb kama sheegayo dabeecadiisana ceeb kama sheegayo laakiin waan iska nacayo markaan arko waxa ay qaban candhuuf ku tuf halkaasaan marayaa bay tiri aniga ninkan noo kala faataxe ninkan aniga meel kala gee ninku waa saxaabi darajada lahaa mid baa nacday mid labaadna way nacday ogow marka haddaba in lagu nici karo ogow adigoo nin rag ahoo reerka suldaan iyo oday u ahoo ninkii rag ka soo bixi jiray isu haysto dadka dhan iskala fiican gabadh yar intay soo istaagto dulligan ma raba way ku dhihi kartaa aniga ma arki karo
waan nacayba waa lagu dhihi karaa waa lagu nici karaa adna waad nici kartaa aduu haddaad nacdo inaad furtaa kuu furan iyadoo hadday ku nacdo maxaa u furan inay fasaq dalbato waa masaladii khulucna baabul faskhi weeye nabiga xasan gabdhihii mid kamida wuxuu ku yidhi beer weyn buu ku siiyey beertiisii muu celinaysaa markaas waxay tihi beertiina waanu celin waxna waan ugu dari beer mehe weliba waxbaan ugu dari bay tihi mar hadduu idaynayo waxbaan ugu dariba nabigu wuxuu yidhi ama ziyaadatu falaa waxbaan ugu dari ma ogolin laakiin beertiisii isagii buu yeero wuxuu yidhi wareedhe beertaadina gabadhana sii daa fasax aniga ay qasbi kara aniga xagta naagteeda iga furi kara sheekada ama taalla markuu qaadi yaallo waxaa lagu yidhi waryaa warka inta iska daysa hal yeel beerta qaado gabadhana warqadeedii keen waa diiday beertiina waa laga guddoomi warqadeedana waa loo qori beerta waxaa lagu leeyahay adaa lehe waardiye u dirsa hadday kaa dayacanta hawl adiga shoorkaa wey hawladii kuu taalla wey markii xukum jiro xukumka xoogga marka lagu fulinayo qiimahaasu leeh inahaas waa sababaha keenaya adoo nool oo taagan oon xaaskaagii furin in lagaa furo xaaskaagii oodan furin in xukun furitaana ku soo baxo oo baabul faskhiya wey arrinta ayaa igu samayn kara wey cidda awooddaa leh ee arrinta igu samayn karta waa iyo waxaan leenahay waa 3 qolo madaxii iyo maamulkii islaamka ahaa ee jiray oo ama imaam iyo amiir ah ama qaadi uu isagu magacaabay oo naa'ib ka ah qadiyadii hadday xaqiijiyaan adigana xal kaa waayaan way furayaan wayna furmaysaa xukunkeeduna fasaq buu noqonayaa waa kow waxaa kaloo fasaqi kara oodan hadal ka daba celinaynin sharcan laba qof oo labada xigta ood u xil saarteen fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha labadaa haddaad bixisaan ood labadaa u tala dhiibataan ood marka hore taxkiimka raalli ku noqoto xukumkay xukumaan uu kugu fuli khiyaarna ma lihid xukunka marka laba unbuu noqon taxkiimka cumuumkiisa abwaabtoo dhan marka la yidhaahdo dee wax fulintiisii adi lagaaga baahan yahay oo ridaha kugu xiran waajib diin bay kugu tahay laakiin duniye iyo qadaa'an awood ahaan haddii boolis la helo iyo awood haddii la helo xoog baa lagaa qaadan karaa tan talaaqana waan furnay bay dhahayaan waan kala furnay wayna furmaysaa ani ma furin yaa iga furi kara weligaaba qayl adoo indhaha gushan yihiinba intay xakamaynku furaan oy furantoy ciddadeeda dhammaysatay guursan haddana adoo waxaad ka badin weyda samee ninkaad ka awoodiyey itaal roon tahay inu hanjab hawladiyo kuu taalla wey qofka saddexaad haddii la waayo labadii man yaquumu maqaamahumaa wey cidda maslaxada guud ee muslimiinta u taagan baa baabkii wilaayaadkaasoo dhan qaadaysa ama jamciyaad ha noqdaan ama maraakis islaamiya ha noqdaan ciddii shalay gabadha weligeeda haddii la waaye meherinaysay ee booska qaadiga u galaysay baa maanta qaadigii haddii la waayana ka fasaqi ninkii oo booskiisii u geli saddexdaana waa ciddi iska leh qaybta waxaan ku soo gabagabayn marka fasaqii dhaco maxaa ka dhalanaya oo dambe waxaa ka dhalanaya kow gabadhii cidday geli ciddadeedu hadday uur leedahay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wey waa hadday uur leedahay haddaynan uur lahaynna hal xayd bay tirsan ama hal bil nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii khuluca gashay wuxuu amray an tactadda bixaydatin hal caada inay tirsato haddayna gabadhu caado haweentu caadaba lahaynoo ama caafimaad dartii ay ugaba guurtay caadadii ama cimri iyo da'deediiba ay dhaaftayna hal bil bay tirsan wixii ka dambeeya guur baa u furan waa xukunka koowaad ee ciddada oo qaabkaa uga dhalanaya xukunka labaad ee ka dhalanaya
rajca ma leh weeye ilaa biridaaha ninkii rajactu ma dhihi karaa hal dalqad baa lagaga fasaqayaa rajactu ma dhihi karaa maya sababtoo ah fasaqa waxa looga fasaqay waa dulmi iyo culays saaraa in laga qaado hadduu soo celiyo mal faa'iida maxaa faa'iido ku jira laakiin hadduu iyadii xagga ka wareego sasabo oo iyadiina isku noqdaan raalli ku noqoto way isku noqon karaan dalqadihii saddexda ahaana waxba ka noqon maayaan dalqad maaha fasaq saddexdii bay ku wada joogayaan hadduu iyada sasabtoo raalli geliyo laakiin iyadu hadduu raalli gelin waayo rajactu ma leh waayo xoog baa marka horeba tan lagu keenay hadduu rajactu dhihi karo xooggii bilaa midho iyo bilaa faa'iido wey masalada saddexaad ee ka dhalanaysa waxaa weeye biilna ma laha gurina ma laha gabadhu marka la fasaqo guriga ninka hadduu lahaa boorsadeeda iyo alaabteeda ha daldalatay meeshaa isaga guurto wey hadduu isagu raalli iga noqdo iska joog yidhaahdana rajiya damacba ha ka haya inuu sasabtee isagaa khiyaaru leh laakiin guri iyo deegaan kuma leh xilliga ay ciddada ku jirto nafaqa iyo biilna kuma leh inay intay uur leedahay ama ilmo nuujinayso ilmaha dartii ay wax ku yeelata maahane intaasina qaybtii kale ee fasaqa ahayd baan kaga bixiya asbaabtiisa iyo cidda leh iyo waxa ka dhasha qaybta ugu dambaysa ee saddexaad ee cinwaanku uu ahaa طلاق iyo furitaankii baan soo geli mawduucii maanan gaarin su'aalihiin fara badana jawaab su'aalaha yaala shay qoran wixii aan ka dhaxda kaga jawaabo waad iga reereebi hadhow furqada kale waa furitaan ninka ka yimid way furitaanka ninka ka yimid isaga masaa'il dhowraynu ka hadliyo ilaa insha Allah ta'ala 6 ama 7 masalan ka hadli ku soo ururin masaa'ilkeeda markaan ku soo ururinayo de waan soo koobayaa anu kitaabu talaaq oo dhan kutubtii fiqiga idin ma aqrinayo muxaadaran ka jeedinaya mawduuca marka muxaadarada waxaan isleeyahay intaan way ugu muhiimsan tahay nuxurkaan idin soo ururin marka koobaad in la xala fura ma bannaan tahay inay waajib noqotaa laga yaabaa hadday noloshii kala adkaato in la isku dambaaba ay noqoto ama waajibaadkii la isku lahaa la gudan waayo la iscafis iyo sabirna uu dhammaado intii adduunya aakhira la isku seegi lahaa furitaanku xal wey waxaan leenahay yaa wax furi kara masalada labaadan ka hadlayno yaa wax fura waxaan leenahay tii fasaqayd marka laga soo tago furitaanka nin wax qabaa wax fura nabiga calaih salam wuxuu yidhi xadiidka ibn cabbaas inama atalaaqu liman akhada bisaaqi furitaanka waxaa iska leh ninka xarigga haya dhudhun inuu qabtana ay ugu bannaan tahay saas darteed wiil baa laga soo dacwooday aabbihii baa yidhi gabadhiinni waan idiin furnay iska taga waxba kama jiro nin baa naaguusan qabin furay waxba kama jiro walow kaana mucallaqan wuxuu yidhi gabadhay haddaan ku guursada waad iga furan tahay kadib buu guursadoo mehersadee ma furan tahay maya markuu waad iga furan tahay ilaa waxba gacan kuma haynin hadal laqwiya wey saa darteed wuxuu leeyahay nabi calaih salaam talaaq aan nikaax ka horreynin waxba kama jiro masale labaad baa jirta laakiin la yidhahdaa talaaqu lfuduuli talaaqa faduusha nin naagtiisa ma u furi kartaa haa oo maya horta bil wakaala waad ku furi kartaa hadduu ku wakiisho oo ku yidhaahda adaa wakiiliga ah adoo isaga wakiilka aad furi kartaa iyada hadduu wakiisho way isfuri kartaa oo yidhahda dalqadii adaan gacanta kuu geliya hadduu yidhaahdo oy tiraahdaa waan isfuray way furmi ila isaga wakiisho awooddii ku wareejiyey hadduu awooddiisii iyo xilkii uga tanaasulo way isfuri kartaa talaaquki biyadiki
gacantaadu ku jira hadduu yidhaahdo xarigaagii gacantaadaan geliyo isku jira waan isfuray kala tag laakiin nimaan la wakiilan hawshana aan loo dirsan intuu xaaladda reerka uun arko ninkii naagta ma u furi karaa haa oo maya masalada waa masalada talaaqa iyo bayci iyo cuquudi iyo fuduuli baa la yidhahdaa faduul markii ninka uu sameeyo wax kuma furmaan hadalkiisuna markaaba ka kacma noqdo adaa lagugu soo noqon hadduu ninkii ku yidhahdo warniyahu nin weyn baanahay eray baa iga dhacay wax kastaba aad samayside ha igu beenayn intuu ku yidhahdo waa yahay aad tidhaahdo way furan tahay way kaa furmaysaa sida gurigaagiiba intuu gado hadduu ku yidhahdo anaa kuu soo heshiiyo xag iyo xagga kaa keeno ka ogolaysiiyo ood haye tiraahdo beecii hore asaxay tanna dalaaqii hore asaxay wey marka talaaqu lfuduuli waxaan leenahay ogolaanshaha iyo ridaha ninkii xirahan gacanta ku hayay xarigiisii uu ku xihan yahay haddii intuu soo furay bil ka hor bil kadib aada waafaqdo dalqaddu waxay ka soo bilaabatay bil ka hor ciddadu bil ka hor bay soo bilaabatay marka ayaan aada lagu sasabin ama oday baan ahay iyo waan kugu dhaartay iyo iga yeelayo haddaad yeesho saaday ku jirtaa laakiin asalku talaaqa ninka meherka gacantiisa ku jira iska leh ilaa fii xaalatin waaxida xaaladaa hadduusan mukallaf ahayn weeye qofka wax qaba ninkii baa waashay waa majnuun baa maanta oo dhan wax furay waxba kama furmaan noloshii baa adkaatay ninkii weligiisa ahaa wuxuu dan u arkay in ninkan haweentan laga sii daayo waa uu furi karaa waayo isagaa xoolihiisa gada isagaana wax u soo iibiya isagaa cuquudoo dhan u gala isagaa meher hadduu aqbalayo u aqbalaya sabigii iyo majnuunkii labadaba weligoodaa wax furaya cidda weliga u ah baa dalaaqa gacanta ku haysa taana cidda dalaaqa ku haysa gacanta baan intaa kaga gudbi masalada kale arkaanu talaaq talaaqii markuu asaxayo dhowr arrimoodoo warkeennii ka soo baxday baan rabaa dib tooshka inaan ugu yar ifiyo markuu talaaq asaxayo marka koobaad waa inuu nin wax qaba jiro nin xilo leh oo xilihiisii furayaayo waa inuu jiro dhinaca labaadna xilo la qabo oo xaas xarig saxa hayo oo la furaayo waa inay jirto nimaan xilo lahayn isna wax ma furi karo naagna nimaan qabini ma furi karo labadaa hadalkeenna hor aad ka garatay furitaankiina waa inuu dhaco waa inuu wax fal iyo siiqo soo fushay noqdaa niyo wax kuma furmaan marka haddaad maantao dhan niyada ku haysaa naagta fur haddii aad go-aansatay berri fur bisha damba fur hadday niyad uun tahay ilaa wax kaa soo baxaan waxba ma furmaan waa in wax kaa soo fulo ay culimmadu u yaqaanaan siiqatu talaaq siiqadaasaynu dhowr qaybood ka tilmaamaynaa siiqadaasi waxay noqon kartaa eray afkaaga ka soo baxay oo siiqa lafdiya la yidhaahdaa ama talaaqu lafdi siiqa iyo weedh eray ah waan ku furay oo kaleeto ama waad furan tahay ama waan furay ama way furan tahay saddexdii baad iga tahay saa doonta u dheh waa dhawaq iyo eray afkaaga ka soo baxay kow ama waad qortay oo gacan baad ku qortay heble hebel oo xaaskaygiia dalqad baan ku furay kaasaad warqadiina seexday iyadana waa furitaan waad ishaartay waad midaartay saas iyo gacantii waxaad tidhaahdaba ninkii fankaa yaqaanay sida loo midaaro dalaaq makaa noqoni iyadana dalaaq way noqotaa saddexdoodaba mar kale aan isku soo celcelin doonaaye dalaaqu sayqada ku soo baxayo imaa waxay noqotaa binnutqi afka inaad kaga hadasho wa imaa bilkitaabati inaad qorto wa imaa bilishaarati in la tilmaamo oo la midaaro saddexdaba wax waa ku furmaan laakiin labay u qaybsamaan isku soo celceliyo siiqadaas iyo weedha aad wax ku furtay iyo qaabka aad u furtay
صريحنا وان نقضا كناينا وان نقضا صريح وأري عد طلاق موين وحكلا صورة قلك وهين واد فرانتهاي وانكو فريوي أما قرالك وسيدا صاد قرتي قرالك إيا نطقي وستوسي وقشا إشارة دي مدار كينا لبا مدوي مقف دقولات بس قف دقاقوات هداد دقولتهاي صريح بيجلي قيبتي صريح السيدة اللي جوجية قانا إشارة هذه أفكار هذا القف نجا قباضه تهاي عاد مدار وحكو فرتنا باب الكنايات كوجلي نيو باهن وحكو كلا دوينا ده بس صريحه نية وباهنا كناية ذي كذا الكذا بدل قبض بنا نيو باهن محاكم إذا رياضة ماشى ربطات وتقول دونا كرتا حرقاقي وانسي دايي خير كينيات إيغا تاشو قورسو رأيضا صدوان كفري عد ماها هدون نيد مركو إرأيقا لها فريتان وغلت شيدي وفريتان وحانا أصل كنايات كوه هل أرى وحلي النبي عليه الصلاة والسلام قابل دعي الحقي بأهلك غيرك إني أدوي النبي عليه الصلاة والسلام بعد قبر بوجور سدوا له مهري حلي يقول لا أقل قلي قبردي قبر هذا قروح بدن بيهيت قبردي قدر باك السعودي وحقي قفلة ذا كل عادي وحان هري لو يري إذا جاء القدر عمي البصر وبطل الحذر انت عايشية أتمت بوحيت رعاه ونقل قلياي نبي مركو سوق قال قوري محو قلت عليه هين لو ده كسر قمة صلى الله عليه وسلم قلب ويكدوش وحين النبي صومها ولا قوي قانا نبي صلى الله عليه وسلم مركو سوق قالوا waxaad ku tiraahdaa ilaahay baan ka magan galay ku dheh a'uudu billahi minka erayga kala baadeen iyada qaflad baa ku dhacday say u sugaysanagu markuu soo galay bay tiri soo dhaweyntii a'uudu billahi minka ilaahay baan ka magan galay bay tiri isna wuxuu yiri alla weyn baan naga magan gashay ilhaqi bi ahliki reerkiinaad waad furantahay halkaas gabadha lagu soo afjarantay xaaladeedu nabigu hadaba ilhaqi bi ahliki furitaan bay ahayd furitaan buu ula jeeday waana ku furantay gabadhii isla eraygaas baa qisadii tabuk kacb ibn malik iyo marka hareen wala thalathati alladhina khulifu waa kii waxoogay la go'doomiyay ee la karantiilay maalmihii u dambeeyay waa kii la yiri haweenkooduna ha ka tagaan كعب بن مالك وكي حاسكي سكويل الحقي بأهلك ما ريرك النئات حتى يقضي الله في هذا الأمر إلى أرد إله وكحكمه قرق النئات بير قرق النئات دا وحي أهيد بالحالات باسعوته ريرك النئات سقاسي تقطع أنه مالكو دنبين أيوه فريتان ما هين فريتان بسنوغة تشيدين مرك الحقي بأهلك وأريقي وأريقي نبيقو فريتان بوغة تشيدو فريتان من نقضي كعب بن مالك فريتان وقامت تشيدين وفريتان من نقن waxaa qaacidada soo galay erayada dalaaqana noqda wax kalena noqon kara in ku cadeyn boqol aan ahayn kinaaya la yiraahdaa waa nooc sarbeebtaasi niyay u baahan tahay haddii aad niyeysan tahay markaad ku hadlaysay way gadaal maaha markaad waxoogay yar miyirsatay caradu ka degtay maaha markaad waxoogay reerkii ka yar shallaytootay waxaad samaysayna maaha markii wax dhacayeen ilaahay adigana qalbiga waa isogtiin هذا واحد بينا النور شيكتا كامو في الروم ما نقوله لكن رون هدات شيكتا إلهينا كبقضو هدات فريتان وقت شيدين وفريتان هدوسا فريتان وقت شيدين فريتان معها هداي تهمته مع دانا والله دارين إنو سن فريتان وقت شيدين بو كتاب ماري ريركو ريركي سيوين نقول واكين آيادا صريحة عدسو معها وحبان وقت شيدين وقت شيدين لقوبة ويدين مايه سم مباشر أوتوماتيكا وحيون نقوم فريتان
taana mas'alada saddexaad baan kaga bixi mas'alada afraad talaaqa anwaac kamida qaababka la isu furo ama furitaanku qaababku u dhaco baan qaybo kamida rabaa inaan ahkaamtooda tiriyo talaaqu mar waxaa la yiraahdaa talaaq mucallaq iyo talaaq munajjaz talaaq shardi ku xiran iyo talaaq markaaba hore ka dhiiba way waad furan tahay iyo haddaad saa yeesha waad furan tahay way kala tahay ama waxaynu qaybin karnaa talaaqa saddex baan u qaybin karnaa qaarkood say yiraahdeen munajjaz iyo muajjal iyo mucallaq ama muajjalka iyo mucallaqa la israaciya fuqaada istilaaxaadkooda kuwa kala qaada waxay ku leeyihiin bisha soo socota kowdeeda waad furan tahay shardina waa laga dhigi karaa hadday bilhibla bilato waad furan tahay qaybtii tacriiqa iska raacayaan intooda badan haddaba dalaaqa haddaba haddaad soo afjartana oo tiraahda waan ku furay waad furan tahayna talaaq munajjaz baa la yidhaahdaa iyo halkaba la afjaray haddaad shardi ku xirtana marka waxa la isu diidan yahay ka dhacaway haddaad gurigaa tagto waad iga furan tahay hadduu guriga ruuxaa soo galo waad furan tahay haddaad meel hebla aado haddaad waxaa samayso haddaad sidaa tiraahdo waad furan tahay waxa lagu xiray labuu noqon karaa wax fal aadama ah iyo waxaan fal aadama ahayn waxaan fal aadama ahayn hadduu bishaa bilato hadday qorraxdu soo baxdo waad furan tahay fal aadama maaha wax fal aadamaana waa laga dhigi karaayoo saddexa ama ninkaa falkiisa ku xiri kara saa iyo saa haddaan yeelo xilahay furan buu yidhi oo xila furka u naqaana wey ama falka xaaskaa lagu xiri karaayo heblaay saa iyo saa haddaad yeesho waad furan tahay nimanka haweenka ka labaad guursada gadaalna ka baqa in la ogaadana diidan baa isticmaalay ogaada islaantii dambe uu guursanayay buu rabaa warkan inayna sheegin haddii aad sheegto lagaa maqla waad furan tahay buu dhihi haddaad sheegto oo qof kaa maqlo hadda waad furan tahay iyadii inay warkii baxana way rabtaay oo raxaas inay tahay la ogaado waxana waa u dheeryahay oo bal reerihii kale intay maqlaan oo masayraan daaqadan ay ka baxaan dabaca kama madhna mid kalena way haysataay hadday sheegto iyadii baaba daaqada kaga sii bixi marka calaa kulli xaal falkeedaad ku xirtay saa haddaad yeesha saa haddaad tiraahda saa haddaadan yeelin qof kale falkiina waad ku xiri kartaa hebel hadduu saa yeelo hooyada hadday saa yeesha aabbaha hadduu saa yeelo qofka hadduu saa yidhaahdo aduu calaa kulli xaal isku soo ururiyo waa noocyo badan oo iskugu hanjabno oo isugu handadno mar ujeeddadu ay tahay dalaaqu inuu dhaco marna qofkan waxaa in laga celiyo ama isagoo iska celiyo ama xaaska waxaa ka celiyo ujeeddadu ay tahay isku soo ururiyo calaa qowli ljamaahiir baynu iska mariye dalaaqu labadaba wuu ku dhacaa kii munajaskahaana waqtigiiba wuu dhici kii shardi ku xirnaana goorta shardigii dhaco ee shardigii la helo bay haweentii furmi wixii hadday samaysaa way furmi aduu wixii haddaad samaysaa way furmi wixii xagga min allaahi hadduu yimaado way furmi qofkii kale wixii hadduu sameeyana way furmi talaaqa wuu dhici wixii ka dhalan lahaa baan dib ka sheegi doonaa insha allahu tacaala taasi waa talaaqa marna aan niraana mucallaq iyo munajaz baa laga hadlaa culimmadu mar kale waxaa laga hadlaa culimmadu talaaqa la yidhaahdo talaaqu lsunnati wa talaaqu lbidcati baa laga hadlaa talaaq sunno ah oo sidii sharcigu marba haddii la kala tegayo waqti lagu beega inay beega fiican tahay buu sharcigu jideeyey yaa ayuha nabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna liciddatihinna ciddadooda xilligay bilaaban lahaayeen fura nagaan lana qabin ciddadna ku jirin oo dhexda meeraysanaysa waqti dhumis wey gabadha iyadoo caado qabta in la fura lama ogola talaaq bidci baa la yidhaahdaa waayo caadadaas lagu dhex furay loo tirin maayo caado ay ka qabaysatay
caado ay ka qabaysatay ood gogol isku aragteenna intaa ay daahirka tahayna lama ogola sababtoo tuhrigan tirsanaan maayo caadadaas dambe uga bilaaban waqtigan dheer waa ka dhumaya laa walaa meel dhaxaad bay ku dhacaysaa saas darteed inay daahir tahay baa la rabaa tuhrigaana aan lagu jimaacin xaydkii ka horreeyay dhexdiisana uusan dalaaq dhicin baa la rabaa wixii aan sidaa ahayn dalaaq bidci baa la yidhahdaa wixii haweenta uurka leh ama aan caadaba lahayn ama aan gogolba la isku arag ama daahir oon laguna taaban kii ka horreeyana dalaaq ku dhicinna waqti lagu furo way tahay haddii kollaba la furayo dalaaqa sunniga wuu dhici cumuuman dalaaqa bidciga ama dhaca muran baa ka taagan wasaxiixu wuu dhacayaa asalna waxaa waa xadiidkii ibnu cumar xaaskiisoo caado ku jirtuu furay cumar baa nabiga u yimid oo yidhi wiilkaygii cabdullaahi xaaskiisoo caado ku jirtuu furay nabigu wuxuu yidhi murhu falyuraajicha amar siiyo ha soo ceshada buu yidhi ibnu cumar baa dib laga weydiiyey agarka riwaayaadka waxaa laleeyahay ma laguu xisaabay dalqadii markaasuu yidhi haa xusibat calaya tatliiqatan waaxida hal dalqad baa la ii xisaabay buuri marka dalqadaa dhacday laakiin waa laga qiildayaa ma dhacaysadu meelaha qiilka qaalinta lagu kala qaato weeye qowlkaa in lagu qabto meelaha laga qiildaya weeye nooca saddexaad aan talaaqa ka hadlayno waa talaaqu lbaa'in iyo talaaq rajci ah haweenta marka la furayo laba mid buu noqdaa dalaaqeedu saddexdii inay dhammaatay iyo in wax ka dhiman yahay hadday saddexdu dhammaatay axkaam baa ka dhalan dib baanan ka sheegi doonaa laakiin nafaqa ma leh iyo biil haddayna uur lahayn ama ilmo nuujinaynin guri iyo deegaanna ma leh haddaan la ysaga sadaqaysanaynin rajactuna ma leh dibna la ysuba guursan karo ilaa nin kale khayaalkeed kusoo guursato axkaamteeday leedahay dib baan ka tilmaami doonaa axkaamahay ku kala duwan yihiin talaaqa rajcigana waxaa la yidhahdaa dalqadda koowaad markay dhacdo iyo dalqadda labaad markay dhacdo intayna ciddadu dhammaan ninka rajactu buu dhihi karaayo axkaam gaaray leedahay iyadana waa tilmaami doonaa laba baab bay culimmadu u sameeyaan iyo axkaamtooda dalqadda koowaad waa rajci dalqadda labaad rajactu baa furan ta saddexaad waa lagu kala yaacay altalaaqu marataani laba jeer baa dalaaq la ysfuray laysa soo ceshan karaa fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaanin waa ka dambeeya tii saddexaad haddii lagu furana fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra mas'aladaa masalada u dambaysa ee qaybahan aan kaga hadlayo baa raacaysa waa mas'alada la yidhaahdo طalaaqu الثalaaثi wa طalaaqu اlbatta saddex baan kugu furay wey imisaa dhacda masalada labaad waan ku furay weeye furiin aan ka noqod lahayn baan ku furay wey furiin aan rajactu lahayn baan ku furay dalaaqa albatta taasoo kaleetaa looga jeedaa albatta waxaa weeye waan ku furay furitaan aanan rajo kaa qabin baan ku furay wey saddex ma dhihin tirana ma sheegin laakiin waxaan ku furay weeye furitaan aanan rajo kaa lahayn dhinac wuxuu ka shabahaa soomaha saddexdii saddex baan rajo lahayn dhinacna saddexda ugama ekoo tira ma muuqato talaaqulbatta la yidhahdaa labadaa talaaq fii asaxi alqowleyni hal dalqadun baa dhici sideedabana warkaa hal dalqad baa dhici aan waxoogay maanta kuu jilciye laba dalqadood ciddad isuguma tagaan wey talaaqu halaath laba dalqadood ciddad isuguma tagaan ninka haweentii hadduu furo ciddad bay gashay inuu soo ceshado mooyeen dalqad kale ku dhici mayso hadduu furay waad furan tahay buu yidhi hadhow buu yidhi haddana waan ku furay kalaam laqwi wey waxba kama jiro maalinkii dambe uu ku celiyo ku kalaan kugu furay waxba kama jiro waad furan tahay buu yidhi markaase waxay tihi middii labaadna igu dar waan kuugu daray buu yidhi
mid saddex iga dhig bay tiri saddexdii dhamay hadday kaa dhab tahay waan kuugu daray wili saddexdii baan kaaga dhigay labada dambe waxba kama jiraan tii labaad inay dhacdo ma rabtaa waan ku furay dheh rajactu waan soo ceshaday ogaada waan ku furay rajactu waan soo ceshaday ogaada waan ku furay dheh inay rajactu dhex gasho maahane saddex laba dalqadood isma raacan saasaa looga jeedaa waxaase warwadadow see wuxuu wadaa nabigaasaa yidhi sal alla alay slam nabigaa cumuuman xukumay saddex dalqadood hal inay tahay imaamu muslim baa wariyey xadiidka ibni cabbaas kaana talaaqu الثalaaثi calaa cahdi rasuuli اllahi sal ly slam wa abi bakrin wa sanatayni min khilaafati cumari waaxida intii nabigu noolaa iyo inta abubakar muslimiinta maamulayay iyo labadii sane hore cumar saddex baad ku furantahay hal baa laga soo qaadi jiray ani mar haddii aan koori nabigaa saa yeelay calayh salatu wasalaam cid kalaa saa yeeshay warkeed iima taal hawlii taalla maaha mar hadda hadalkay nabi maxamed hayo waxaa la yidhi hadii sheekh yimaada macallin fariisay soo ma sheekh hebel iyo caalim hebel baa saa yidhi nabi maxamed baa yimid haddii la yidhaahdo meel iska fadhiisa waayo culimaduna carabtuna waxay yidhahdaan idaa jaa naharullaahi batala nahru macqilin asalkeeduna waxay ahayd nin baa meel biyo beero la warwaraabsanayay iyo biyo la cabayay buu dad u tashiilayay samadaa roob ka yimid daadna biyuhoo saa u yaacayaa yimid hebel in la barbarya ma loo baahan yahay marka iyo biyo igu shubiyo waxaa dhahda idaa jaa naharullaahi webigii allaba hadduu yimid oo raxmaddii alle iyo roob ka yimaado hebel biyihiisi iyo ceelkiisi waxba loogama baahna waa xoolo bakhayl wey taasay carabtuna tiraahda asalka laakiin maamada saasay ku baxday waxaan rabaa inaan iraahdo talaaqu الثalaaثi qismu talaaqi rajci buu geli hal dalqad baa dhici hadday ciddadu goodana hal dalqadun bay ku gooday isna meesha laga qiildaya wey nin culummada ka mid ahaa oo raggii soomaalida gobollada qaarkood ugu caansanaa qiildayga ahaa allah u naxariista markuu dhintay maktabadiisii waxaa laga soo bixiyey subul salaamka buluuqul maraamka sharxa baa laga soo bixiyey talaaqul bidciga iyo talaaqu thalaadku ka qiilday jiray laakiin dadka si guud uguma sheegi jirine ninkii gaaroon buu u sheegi jirayo halkaasaa qiildayga laga fiirin jiray qaalin bixiyaa qiil ma waayo wey laakiin qiil bixintan badan waxba yaan diintiina laydinka luminine saddexdii isku xigta hadday kaa dhammaato wadaad yaanu ku lugoynin waxaad adigu og tahayna wadaadku suu kuu qiil bixiya ha uga been sheegin nin baa waxaa la yidhi nin baa wuxuu iga sheekeynaya sheekh cabdullaahi la yidhahdo sheekh cabdullaahi waa nin bay sheekh cumar faaruq walaalo yihiin wey wuxuu iga sheekeeyey nin baa naag nin qabo buu la soo baxsaday wadaad buu u keenay buu wadaadka magaciisa uu sheegaya garan maayo hadda garan maayo markaasuu wuxuu yidhi wadaadow naagtan oo nin qabaan la soo baxsaday ii meheri war maxaa tidhi naagtan aan la soo cararay nin baa qabay miyuu furay maya oo waad ka ogeyd ninka qabay haa oo waad taqaanaa haa wasumadan ogeyd naag nin qabo inaan la guursan karin haa maxaad rabtaa inaad ii meherisaan rabaa iyadii buu u yeedhay nama nin baa ku qaba haa isagoo ninku qabaad ninkan soo raacday haa miyuu ku furay maya miyaa lagaa fasaqay maya adoo nin qaba nin kale inay guursan karin soo ma ogid haa idinku car waxaad filaysaan ii sheeg meesha isaga dareera soo maa maxaad bixinaysaan buu yidhi qaalin iyo waxbaa loo ballan qaaday qaalintiisii buu qaatay waa isku kiin meheriyey buu yidhi ordaya wuxuu yidhi culimmadii baa warkii gaadhay kitaabadaa la soo gurtoo gogol baa loo dhigay ninkii waxaa la yidhi qisadan xataa intaasoo faahfaahin aad waraysatay waxaad naagtan ku meherisay baan kaa rabnaa halkaas qiildaygii baa ka soo baxay idinku moogtahay in laydiin qiildayo iyo qiil baa ku hayuunbaa idiin daran iyo ciddadii way dhammaatay waan kuu meherinaynaa kaale laakiin wadaadadu meeshay wax idinka dayaan meelaha qaarkood dhibbadnideeda aydaan ogeyn baan rabaa inaan waxoogay iftiimiyo wuxuu yidhi kuwan horta hubsada buu yidhi marka horeba diin inay leeyihiin diin haystaan
أنا مقالين تيدان وايو كون الدين بما هيستان ومحد كوغاتي ويا ربوي أركان الإسلام كويدية ما تقانان مايا أركان الإيمان كما تقانان مايا مسلم بما بقولكوا كي هرا يحمي إسرائيل marka wadaadada waxay sameeyaan ninka marka loo qiildeeyo iyo naagta waxa la leeyahay arkaanul islaam ka iman baa la weydiin marka horeba laba gaalo waxba isku qabin bay ahaayeen hadda shahaada loo qabano la isu meerin baa la dhigay marka interview marka mas'ala meesha la idin geeyay gaalan waligiiba islaan ahayn inaad ahayd baa lagu geeyay adoo qiil baad raadinaysa laakiin gaalnimo lagu xukumay ogow marka hore waxba isu maahayni buri kii horena waxba maahayni kana waxba maahay maqaarinteedan waayaa buri ninkii halkaas ka buskiciyay xiriirka watalom halkaas ka butiri buri masalada xigta masalada ku xigtan ka hadlayna waa qayb kale anwaac kale oo furitaanku u dhaco baan iyagana afar baan soo qaadi talaaqul mariid nin sakaraadaya wax ma furi karaa waa xanuunsan yahay waana culus yahay islaamihii buu mid furo ku taagay bahal dalqada isna waxaa laga yaabaa waaba iska dhintay mar xanuunkii buu dhintay ka talaaqul mariidina waa la yiraahdaa talaaqul faari nin cararaya dalaaqiina waa la yiraahdaa dalaaqi uu dhici islaantina way dhaxli ama ciddada ha ku jirto ama ha ka baxdo ama dalqadii koowaad ha noqoto ama tii saddexaad ha noqoto waayo isagaaba dhimanayo furqadu way soo socotay waxa uu u dadajiyay ujeedadiisu dhaxalka inuu ka qadiyuu rabay islaantan masii markuu isarkay inuu dhimanayo buu dhaxalka ka qadin rabay qaacidaduna waxay tahay man istacjala shay'a qabla awaanihi uqiba bixirmaanihi ninkii wax soo socdayba ka hortagis yiraahda siduu rabay sida aan ahayn baa lagu dhaqaa ka qadibuu lahaa waa la dhaxalsiin marba xanuunka ilaahu sanadna ha ka soo wareego hadduu xanuunkii u dhinto islaantii way dhaxli iyadoo guursatay oo nin kala guursatay oo reero kala dhaqanaysa bay xoolihii dhaxli waayo adigu hadday dhaxal mas'aladu tahay markaad dhimatay ciddii ilaahay siiyey ha qaadatee maxaa furitaanka keenay dhaxal baan ka hortegayaa masalatu talaaq almariidi weeye macnaheeduna waa dhaqayaa ciddadiina way gelaysaa hadduu cudurkaa u dhintana dhaxalkeedii way leedahay wey masalada labaadi waa talaaqu lhaazili waljaahili ninka furitaanka kaftanka ah haddaad kaftan wax ku furto idinkoo kaftamaya aad furto oyna aad dhabkaaga sii ahayn ama aad ku koolkooliso ood ku qooqiso ama aad qayladeeda isaga aamusiiso way furmi iyadana talaaqu kaftan ma galo ciyaar iyo aamusiinna ma galo nabiga yidhi sal ly slam halaathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex kastoodu waa kas iyo dhabtoodu kaftankooduna waa dhab waxaa ka mid ah atalaaqu haddaabaad furiin ku kaftanto xaaskii way furan tahay gabadhiina ha ogaata haddii lagula kaftamo ciyaar loo dhaho waad furan tahay way furan tahay sharcan waxaa la diidayaa mas'aladan waa mas'alo adage si fudud afka kaftan iyo koolkoolin inay u soo marto Zubayr ibn Awaam radiyallahu anhu wa ardaahu baxaaskiisa waxooga isku yar qabqaban jireen maalinkii dambe salaad subax buu u kacay aadaankii dambena waa la aadaamay isagoo sii baxaya iyadana waa uur culus foolna way dareemaysaa laakiin isagu ma oga inay xanuun dareemayso waxay tiri Zubayrow inta salaada ka soo noqonayso hal xabba maad iga farxisid bay tiri oo waxoogay qac iga yarsiis masaasad rabtaa ha inta salaada ka soo noqonayuun miyaa hal baad ku furan tahay buuri salaadu iska tukado rag buu la soo haasaaway iyadoo umushay buu yimid waaba ku bariyay ilaa haday umushay ciidadii dhamaatay Soomaa rajacto male nabigu wuu alayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay gabadhiina hebelayd saxan bay gashay haye way isirtayo sidana igu samaysay
nabigu wuxuu yidhi qad malakat nafsaha iyadaa gacanta arrinteeda ku haysa buu yidhi xal ma haysatid allaha ku calfo wax kale bannaanka ka mar isagu markaa ku yar aamusiye ciyaar bay ka ahayd laakiin way ku tagtay marka waxaadan filaynin guurka iyo furitaankuba haddii kaftan loo dhaho waraa gabadhayda waan ku guuriya hadduu kira waan aqbala haddaad tiraahdo adigoo kaftamaya gabadhay kugu xirantay ogow saa darteed ninkaad kari weydi intaad la yar sheekaysato kaftan inaad u gelin karta isku day masalada saddexaad waxaa la yidhaha talaaqul ghadbaan talaaqa furitaanka ninka caraysan hadduu wax furo waa kaa dhammaaday baa liileeyahay anna kow ma jooga 10 daqiiqo si un baan yidhi kolon su-aalaha dhex gelgeliya inta dambe ninka caraysan baa wax furay nin caraysan wax ma furi karaa waxaynu leenahay caradu 3 qaybood weeye marka la isku soo celceliyana labaynu ku soo ururin nin markuu carooda miyir beera oo waxa uu leeyahay wuxuu ku hadlayayba ogeyn oo war u haynin ninkaasi waxba kama furmaano waa xukmul majnuuni wey majnuun buu la xugaya kaasar weeye ka nabigu hadalkiisu ku dhacaya calayhi salaatu wasalaam laa talaaqa fii iglaaqin waxba kama furna xilli hadduu ku jiro qofku uusan khiyaar balahayn oo garashadii iyo maskaxduba xiran tahay qab waaba qufulmayba qofka sidaasi hadday wuxuu yidhina ma garanayo waxbana kama oga wuxuu samaynaya isma garanayo qaar baa dadka gergeriira markay caroodaan isaga dhanba gariiraya afka abur ka sii daynaya qaar baan hadhow marka la weydiiyo waxaasaad samaysay aan ogeynba wuxuu sameeyey isma oga kaasoo kale waxba kama furma majnuun wey caqligiisii ma joogo intaa wixii aan ahayn ama caradan khafiifka ah ama midda waxbaa ku riixaya waxaad samaynayso dhanna waad garanaysaa gaarigaagu gaariyada kaagama qasmo halkii injinka laga kicinayay furihiina ma garan weydo ma arki weydid waddadana haadkaaga kama leexatid markaad bangiga ATM-ka ku leexatana nambarkii iyo biinkaagii ma garan weydid gurigaaga iyo shaqadaadii iyo xisaabahaagiina ma gaftid waan caraysnahay cudurdaar maaha sideedabana reer iyagoo qoslaya oo faraxsan isfuro ma aragteen furitaankuba meel xaalad wax ka dhacay unbuu yimaadaaba waana xilliga ninka sabirka iyo adkaysiga dulqaadka leh iyo ninka dusha yar ay kala baxaan wey saas darteed caradii aan ahayn mid miyirkaagu tegayo dalaaqaagu wuu dhacayaa dalaaqii asalkiisii iyo axkaamtii mukallafiintuna qowlkaagu maraya oo raacaya waxaan ugu dambeeyaa qaybaha dalaaqa aahaarta intaanan gelin qofkii dalaaq lagu qasbo inuu furo haweentaha lagu qasbay ikraaha talaaqul mukrahi ma asaxo shardi baasa ku xiran waa ikraahu bigayri xaqin inuu yahay wey haddii ninkii oo xaqiisii gudanaya xilkiisii iyo waajibkiisiina ka soo baxaya xumaato iyo dhib reerku lagula noolaan waayana aan keensan qasab ku fur haweentii la yidhaahdo oo naftiisa ama maalkiisa iyo cirdigiisa uu u baqo oo yidhaahda waan furay waxba ma furmaan gabadhaana weli xilihiisii iyo xaaskiisii wey laakiin in la ikraaha haddii xaq loogu leeyahay xaqeedii buu ka soo bixi waayey dhaqan xumadiisii baa loo adkaysan waayey waajibaadkeedii bay ka weyday war gabadhii iska fasax baa la yidhi wuu diiday haddii aan qaadi jirin oo dhafoorka qori laga saaro oo la yidhahdo fur gabadha wari ama xoolo aad leedahay oo gidaarka ugu xihanbaa oo yidhahda waan furay way furmaysaa mowqic kasta oy qaadi inuu ka fasaqa xaq u lahayd hadday cid kale ku qasabto qasabkaa way ku furmaysaa saas darteed ikraahu bigayri xaqin waa inuu yahay markaa ma furmayo waxba kama furmayso laakiin bixaqin haddii uu yahay oo fasaq iyo furitaan xaq loogu lahaa dee wax xaq loogu lahaa unbaa xoog lagaga qaatay gabadhana dalaaqay xaq u lahayd weeye way furmaysaa gadaal baa laiga riixayaayo waxaa la yidhi nin ay laba eryayaan kama leexda soo maaha
inta kale idinku meelaha bannaan buuxisada dhamaystirta haddii talaaqii dhaco si kastaba ha u dhacee maxaa ka dhalanaya axkaam dhowraa ka dhalane ciddaa ka dhalan gabadhii cidday geli hadday uur leedahayna wawlaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haddaynan uur lahayn marka hore waxaan leeyahay uurka intaanan gaarin labaan haweenkii u kala qaadaynaa kuwa ciddo leh iyo kuwaan ciddo lahayn waxay u kala duwan yihiin naag reer noqotoy ninka is arkeen oo gogol ku xiriireen iyo mid xilo iyo meher maahane xiriir baan dhex marin labadan xiriirba dhex marin furitaankii dhacay ciddadeeduna way ku dhammaatay fadhigaasaana nin kale ku guursan karaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha haweenka haddaad guursataan idinkoon taabanna aada furtaan wax ciddaa kuma lihdin qolada iyagu halkaasay ka dareereen haweentii ninkanay xiriir gogoleedi dhex maray intay dooniba ha la ekaada ha yaraada ha badnaado aroos ha dhaco luuq iyo barmuudaha la ysku raadsado sidii la dooniba ha la ysku arkee hadday uur leedahay wawlaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay ilmaha dhasho haddaynan uur lahayn waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quruu'in saddex caaday sugi intay ka qabaysanayso talaaqa intii ka dambaysay saddex caaday sugi saddexdooda markay ka qabaysato ta saddexaad baa guurku u furan yahay haddaynan caadaba lahaynna ama xanuun iyo cudur bay uga guurtayba caadadii ama da'deediibayba dhaaftayba iyadana faciddatuhunna halaaثatu ashhurin saddex bilood wey saddex bilood bay dalaaqii laga bilaaba tirsan markay dhammaatay ciddadii waa u dhammaatay masalada waa xukunka koobaad ee ciddada ah masalada labaad waxaan leenahay biil iyo guri dalaaqii baynu laba ka dhigi hadduu dalqadii koobaad yahay ama dalqadii labaad yahay gurigay ku cidda tirsanayso iyo biilkeeda intay ciddada ku jirto ninkaa lagu leeyahay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna iyana yaanay bixin idinna baxa dhihina haddayn dhib kaloo lagula noolaan waayo iyo dhaqan xumo kale aanay la imanin sababtu maxay tahay lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran waxaa laga yaabaa furitaankii isbeddel dhaco dib aad u heshiisaan weli reerkii lama kala dhammaane ha la yska ag dhowaado gabadha haddaba rajcada ku jirta gurigeedii iyo biilkeedii bay leedahay intay ciddada ku jirto tii saddexdu dhammaatay biilna ma laha gurina ma laha haddayna ilmo nuujinaynin ama uur lahayn uur haddii kale taas jirto ilmaha dartii bay ilmaha qadar nafaqaa ku yeelan masalada saddexaad ee la xiriirta waa rajactu gabadhii dalqadda koobaad ama labaad ahayd rajactu baa lagu leeyahay tii saddexdu dhammaatay rajactu warkeed ma jiro masaladii rajactu haddaba aan laba mas'alo ugu muhiimsan uun ku dara waqti ma haye masalada koobaad rajactu raalli ma ka tahay uma baahna gabadhu inay raalli ka tahay uma baahna ninkaba qasab nafaqa iyo guri iyo soo kuma aha haddiiba dalqadii dhacdo inta ay ciddada ku jirto rajactu wuu dhihi karaa hal shardi oo diyaanatan laa qadaa'an ah baa ku xihan isaga hadduu islaax iyo wanaag iyo dhaqan doonayo wey laakiin rajactu iyada waqtiga ku dheereeyo ku dhibaan loo golay ku dambaabi rajactu haba noqoto markhaatina waa inu u yeelaa taa waa mas'alada koobaad anigoo raalli kama ahayn waa su'aalo soo noqnoqday warkaa iyo baabkaa xidha
سؤال ساس أنا شو قرنا يسوع قد بني وكجوابي مسألة الله بعد باب رجعت له حريرة سير رجعت له حيوان رجعت له قولا هدين نقطه ويصح اتفاقا روان سوء الشدي رجعت ومرخاتي الله يلي أفكادو كير هذا والله قرتي فعل رجعت ملوده كرا فعل كان كوجو الحارة مرك قبل مرك رجعية ذات هاي قولي جيدا يتشوقي باليري نين كله ما يقولي أكبح أدور بقولي ودع كسيحن كرا كو ريالك يقولي ولا وده تشوقه مية كحي شابن مايا كحي شابن ميسو أنت عدد أي كشرت محل الله وضع نقمة إياه ماشى كم موضة قولي ويد جنان بيل كينا وبحن وأنا لو ذا جنان كرا إن إسك حجابته إسك قرصنا قسم معها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وحبا صنك الور سلسلة يايو والور وريتشين يا بل وحون دي بسوس النقدانه مركي عرضوا بعضين اللي يسوحي شرعي هو الربا دي برارك لو صوروريو والله الربا هدين ننكي الدوارير هورا يسو يقينيه اسأغا مرمركي هدين اللي يسكو فكذا أصح القولين رجعت وي صدر رجعت ذي فعلنا ونقون كرتا هذا يسكو فكتان رجعت واتراه ذين ضدك مرخاتي ونشاق وكان واضح يا رب مالينا يا إساقنا كسعوا ما أنت أحبات فضيين يسامة هذا مسألة صدحات أما أفراد ودحل هذا يقبض إنك دينته يدو عدة كشرته هذا رجعت لهيد وإذا القدي كوبات أما الله بعض هيد ويدحلي isaguna haday dhimato oo dhaxli haday saddexdu dhamaatay dhaxal kama dhaxeeyo kuwa xarigoodu waa kala go'ay misaladana rajacdi iyo baa'inkii baayadana saa ugu kala duwan misalada kale shanaad waa meherkii meher baa ka dhalan meherkii gabadha loo magacaabay hadii la furo hadii horay gogol la isugu arkayna meherkeedii oo dhammaystiran bay leedahay haddaan la siin haddaan gogol weli la isku aragna fa nisfu maa faradtum waxaad u qadarteen nus bay yeelan nusna uu ka dhici masaladana waa aahaarta furiinka iyo talaaq ka dhalanaysa masalada kale ay ku kala duwan yihiin ka dhalanaysa waxaa weeye alkhitbatu naagti ma la shukaansan karaa ciddada ku jirtay naagta rajactu ah maya si toosa iyo si dadbantoona nin kale ulama soo qaadi kara guur umana shukaansan karo si cad iyo sarbeebtoona lama ogola laakiin gabadha saddexdeedii dhammaatay sarbeeb baa lagu shukaansan karaa laakiin hadalka si fiican in loo saafo lama ogola hadalka u aga marmari waxaad tidhaahdaa heblaay safku waa dheer yahay dheh aad baa laguu sugayaa dheh haddii markii wakhtigaa ku dhammaaday ciddadu dhammaato hay dhaafin dheh adoo kale yaa heli kara dheh in la isku kaa diri doonaan u malayn dheh erayada saa doonta u dhigo inaad rabto tilmaamaya laakiin aan caddayn waan ku rabaa iyo ma ku guursadaa lama ogola rag badan baa guurdooni ogow dheh marka siyaabo badan oo sarbeeba sidana sharcigeennu sarbeebta iyo hadalka cad marar badan bay xugun kala duwan leeyihiin culimmadana in badan waxay ku halqabsan jireen hadal Umar radiyallahu anhu loo tiiriyo marna Imraan ibn Husayn loo tiiriyo oo la yiraahdo fil macaaridi al manduuhatun min al kadhib sarbeebta been baad kaga baxsataa annaga haddaan reer webinahayna waxaan dhihi jirnay markay sarbeebta aan ka hadlayno runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana ha waaye mararka qaarkood baad u baahan tahay waxbaa lagu weydiinayaa wixii inaad sheegtana ma rabtid
inaad qarinayso oo diidan tahay inaad sheegtana ma rabtid idinku dheerayn maayo hal tusaalaan idin siin idinku halkaa ka qiyaasta nolosha caadiga gaar ahaan dhallinyarada ragga waa wada yaqaanaane waxaa lagu yidhi nin baa yimid hebel inuu yimid waad og tahay waa lagu weydiiyey inaad sheegtana ma rabtid tawriya isticmaal waxaa lagu yidhi wareedhe ninkii hebel ahaa ma yimid ha inaad dhahda ma rabtid mayana waa been oo been inaad sheegta ma rabtid runtii ha ahaydna ma rabtid beentii mayad ahaydna ma rabtid waxaad rabtaa wax u dhexeeya inaad sheegto laba qaab baa labadaba kuu furan inaad ereyga tiraahdo isagu uu si u qaadanayo adna aad si kale ula jeedo ma sheegi karo ma sheegi karo sababta waanan ogeyna way noqon kartaa waxaadan rabin inaad sheegteed ka cabsanaysana ma sheegi karo waa la dhahaa soo ma isagu tuu dooni ha u qaato inaad tiraahdo ma sheegi karo waa waxa tawriyada carabiga yidhaahdaan iyo su-aal baa loogu jawaabaa inaad ka dhigto oo miyaa la filaya maalmahan ninkii ma yimid buu ku yidhi soo maaha oo miyaa la filayey nihum waxbaad maqashay waa yahay adigaaba war hayee sheekada halkaa ka sii baxdo marka wararkaasoo kaleeto sarbeebtu wax badan bay anfacdaa ninkii adugu wuxuu u qaatay isagu inaadan ogeyn adu laakiin ma ogi cad maada dhihin calaa kulli xaal taxriimu lkhitbadu tacriidka iyo sarbeebtu gabadha saddexdeedii dhammaatay baa-inadaa wey gabagabadii wakhtigiina waan dheeraystaan u malayne ciddii kaa xaaraan ahayd iyada joogitaankeeda dartii aad qabto rajciyada waa kaasii xaaraan baa-inadana waa ku xalaal gabadha saddexdii haddaad u dhammaysay iyadoo ciddada ku jirta walaasheeda waad guursan kartaa habaryarteedna waad guursan kartaa eedadeedna waad guursan kartaa laakiin rajca hadday tahay dalqadii koowaad ama labaad tahay agtooda ma mari kartid taana rajciyada iyo baa-inada baa ku kala duwan inaasaan ku soo ururine ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala wixii xaqa inuuna waafajiyo reeraheennana kuwii dhisnaaday een dumin uu inooga dhigo